السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو مقام جنرال مقعاق أدور عليه magacay waa Cabdimaalig Maat waa ku faraxsanahay inaan mataqaana wareysiga maanta ka soo qayb galo oo su'aalaha aan ka jawaabo waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo su'aashaasi waxay u dhacaysaa sidatan xaaskaaga haddii ay maartay diidi lahayd in ay maartay hooyadaada kula noolaato mise isku meel ku noolaataan maxaad ku samayn lahayd horta xaaskaaga iyo hooyada inay ku kala muhiimsan yihiin muhiim ah marka ani ahaan hooyaday intaas sano ay soo kornaysay 9 bilood caloosha u soo waday in xaaskayga oo maalmood guursaday darteed aan guriga uga ceyriyo ama taqaanay ayada ka amar qaato oo hooyada guriga ma keena wax macquul ah ila meeko ma garat marka nin walba damir lan arrinkaas ma yeel lahayn marka ma taqaanay arrinkaas ragga sameey rag badan oo sameey waa jiraan raggaas aan waxaan ku tilmaami karaa rag aan damir lahayn oo ma taqaanay hooyadooda xataa istaahilan inay dhaado wiil baan dhalay ama wiilkayga hebel ah inay dhahdo xataa ma istaahilan in la dhamo istaahilan marka ana arrinkaas aad uga soo horjeeda ma garat okay mid xigta ka waran sodohdaada ama gabadha aad qabto hooyadeeda ma jeclaan lahayd isku meel ku noolaataan haddii ma taqaanaa dhacdo inay dhahdo hooyadeen guriga keenaya wax dhiba ma laha guriga waa gurigeedii aniguna waa gurigeyga naga wada dhaxeeya aniga hooyaday waan keen lahaa oo aabbeeyaan keen lahaa ayadana hadday keensanayso wax dhiba ma arko waa soo dhaweynaa arrinkaas okay barnaamij waxaa jira in sodohooyinka ama sodohda maartay inaad aragtaan filaya oo la diiday marka dadkaas maxaa fariin u diri lahayd horta wallaahi gabdhaha diidayo inay ma taqaanaa sodohda ay ka soo guriga imaado gabdhaha diiday waxaan dhigi karaa gabdhahaas ma taqaanaa marka hore wiilka ma jeclaan oo ninka isqabaan ma jeclaan sababtoo ah adaan ku jeclahay hooyadaana ma jecel wax meesha imaanaya ma aha ma garat wax shaqeynaa ma aha marka waxa fariin u dir lahaa inay gabdhaha ma taqaanaa si caqli u fikiraan si wanaagsan u hadlaan ma taqaanaa ragoodana xushmeeyaan kana amar qaataan si diintana farayso okay waa marxaban gol السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو مقام channel magacaaga Suleymaan Suleymaan ka waran xaaskaaga hadii diidi lahayd ama ay ka soo horjeesan lahayd inay hooyadaada in la noolaato oo isku meel aad joogtaan maxaad sameeyeen mise maxaad dhihi lahayd xaaskaas wallahi zaid baa muhiimsan tahay arrinta waalidiintana in la wada heshiyo xaaskaas horta mar walba inay runta loo sheego wanaagsan tahay because waalidkan waa waalid way ma kala maarmaan mana kala fiicno waa isku mid leeyahay laakiin hooyaday dhashtay oo xaaskan qab hooyadiis waa isku mid leeyihiin maadaama saastay laakiin inay ila noolaato zaid u jecelahay because waa waalid way marka xaaska haday diido ay dhil ay ku dhahdo hooyadaadana lama noolaanaysa naga dir maxaa ku sameyn leeyahay hooyadeeda haday diidaa wallahi midaas suurtagal ilmaha because hooyaday anay dhashay moogto iidi shalays barani laakiin hooyaday yeeydi dhashay way because iida ta ku jecel tirtiisa hooyada kaaga mamnuucayso mush ma imaado laakiin mi fiican saasabto midaas baan ku sheegay ku heshiinayn okay mid xigto xaaskaaga hooyadeed ina guri isla noolaataa meel isla joogtaan ma ogolaan lahayd hooyadeeda boqolkiiba zaid ina isla noolaato because waa waalidkayga okay gabar waxa jirta dhahday Facebook ninkayga hooyadiis marka guriga imaanayso waa inuu fasax weydiisaa marka hadaan diido waan diiday hadaan ogolaado aniga amar qaata amal marka gabadhaas maxaad fariin u dir lahayd gabadha walaalkeeda mise gabadha ninkayga waxay dhahday hooyadiis marka guriga keena waa in aan ogolaadaa marka maxaa fariin u dir lahayd permission la'aantiis ma soo keeni karaa midaas maya because iido ilaahay 50 ku dhikay adigoo boqolad ku mutashiin khayr rasuul baa noqonaysa midaas hada diinta ma ogolo haday diido marka ma u joojin lahayd babillahi tawfiiq wala kala ka way midaas ayo maadada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو مقام channel magacaaga Cabshakuur su'aashkoodan ku weydiinaa waxa u dhacaysaa sidatan xaaskaaga adii aad qabto xalaashaada hadii ay diido hooyada inay idin la noolaato mise ay guriga imaato maxaad dhihi lahayd ama taas ma wasi qabeenba sababtoo ah hooyo lama helay laakiin xaas waa leelaya oo naaga way buuxaan naagtii hooyada diida adigana waxay ku haysaa malaha oka inta uu ku darsanaya okay xaaska hooyadeed sodohdaada inay guriga idin la noolaato mise idin la joogto ma jeclaan lahayd waan jeclaan lahaa farxad bay tahay ilan gabadheedu waan jeclaaday intaas oo bilood ay soo korinaysay okay gabadha hadda maalmahan dhahday ninkayga waa inuu iga fasax qaataa mise i weydiiyaa hooyadiisa guriga keenay maxaa fariin u firir leeyahay ama ku dhilay gabadha waxaan fari lahaa waalid waa dhalay waa inay xishmeesho ixtiraamto ilan wiilka waalid baa dhalay ayadana waalid baa dhalay
sidii loo jecel asagana marka intaas baan ku darsanayaa gabdho isdooyaashin jeclaada wiilo sodogaaga sododa jeclo waan ku darsanayaa ma santa xashiga assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Mataan Cabdi Ibrahim Mataan magaalada Nairobi Mataan waxa su'aasha ku weydiinayo waxa u dhacsaysay xaaskaaga haddii ay diido hooyadaada inay idin la noolaato mise ku soo booqato maxaad dhihi leedahay ka sameyn leedahay horta waanina hooyadii hadii soo booqato hooyadii diido hooyadii ayada fudud ayada tagaysa hooyadii joogaysa ma saarno arintee okay xaaskaaga hooyadeed inay idin la noolaato mise guriga idin la joogto ma jeclaan leed adiga hadee ay ku dayatay hooyadii ayada saas waliba hooyadii ku sameysay ana ayada kuma dayanaya waa ka roonaanaya hooyadii waa hooyadii camal oo kale waa ka roonaanaya hooyadii joogaysa ayada marka ayadun ba ceebtii xanuunka arkaysa Soomaa okay gabadha dhahday in maartay ninkayga waa inuu hooyadiis markay guriga imaanayso waa inuu aniga weydiista amriga qaataa ma xafarin oo farleeda ma ku dhileed taas waa khaldanta hooyadii aniga imaanayso waa su'aasha oo intii hore hooyadii ayada imaanayso su'aal kama qaadanayo hooyadii meeshii joogto ugu tagi karaa hadii uu dhahdo guriga hooyadaaga imaanayna oo ayada ay fuudahay baxayso hadana hooyadii ha imaan hooyada marka u socoto amriga qaadin ma dhihi karto hooyadii galmo imaan karto ma xafarin oo farleed ma gabadha saas dhahay saas dhays waa khaldan tahay waa khaldan tahay gabar booran saas deeta ka fiirsato saas u faraya aywa ma santa ku soo dhaw marlaad assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw muqaam channel magacaaga Armaan Axmed Allah brother Armaan su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxa u dhacaysay tan hadii xaaskaaga ay diido in ay hooyadaada kula noolaato ama ay xaafadda imaato maxaad ku sameyn leed mise aad dhihi leed hadii diido xaaskayna hooyadii la noolaato xaaskiga iska tagi lahayd waayo hooyo waa laga maarmaan waa inta aniga aan dhalin ka hor mas'uuliyaddeeda ayada qaaday marka waxa waa intay hooyadii tiglida xaaskiga tagayso laakiin alxamdulillah aniga reer waan leeyahay laakiin xaaskiga hooyadii way u roontahay wayna fiicantay ma sha Allah laakiin waxaan leeyahay gabdhaha diidayo ma artay waalidiinta ha ku qasbanaadaan oo hala noolaadaan waalidiinta ma artay isfiijin waayo birsi ayada ay u fiijisay ba birna ayada loo fiijin doonaa mid xigto gabadhaad qabto hooyadeed inay idin la noolaato mise ay idin la joogto waan jeclahay kelmadda sodohda macnaheedu waxay tahay waa waalid waayo waalidku waxa weeye labada dhanba waa in laga soo dhaweeyaa waa waalid marka waxa labada dhan waa la soo dhaweynayaa laakiin waxaan leeyahay gabdhaha dhahay waalidiinta ma rabo adiga waalidka in la xumeeyo lama rabe adiguna kooda xumeeynin ma farina u dir leed marka hawadu marin leed waxaan hawadu marin lahaa birri way kugu imaan doontaa adigan haddii kugu imaato waa lagu fiijin doonaa adigana waad ka xumaan doontaa marka hadda ha fiijin aan dhihi lahaa ha la isku duubnaada mar kastoo aywa ma santa